السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعيال مركل سو دhowaada insha allah waa video kale inta video bilaawna insha allah subscribe ku dhufo si aan u gaarno 50,000 ama 50,000 u gaarno sanadka intuu dhamaanin waa adag tahay laakiin waa isku daynaa insha allah topiga maanta waxaan kusoo qaadanaynaa ugu yaraan 5 wax waxaan ku dari doonaa mid bonusna waan ku dari doonaa 5 wax ood u baahan tahay inaad taqaanid intaadan bilaabin codinga ama aadan baranin codinga shantan wax waxay iskugu jiraan waxyaalo skill caadi ah oo baran kartid iyo waxay iskugu jiraan waxyaalo qofku u baahan yahay in uu yaqaano ama uu ka fakiro ama uu practice gareeyo so waxyaalahan waxa igu dhaliyay waxaan bilaabay iskuulkii gabi school waxaan bilaabnay cohort cusub marka maaldhowta waxaan kala talinayay waxyaalaha qofku u baahan yahay inuu yaqaano intuunan micnaha codinga una gelin arday badanna su-aal iga weydiiyeen marka waxaan is iri yes waxaa jiro muhiim ah qofku inuu yaqaano intuuna xataa codinga faraha la gelin ama uu programming una bilaabin inuu yaqaano ama inuu xoogaha practice gareeya ama xoogaha uu ku jiray ay fiican tahay marka waxaa is iri ree youtube ayaan la sheer gareynayaa so insha allah waqti inaan ka lumay marka waa ku bilaabayna midda ugu horeyso midda ugu dambeyso bonuska ahna waxaa waaye midda ugu muhiimsan waaye marka video meesha ugu dambeeya daawo okay so number 1 midda ugu horeyso oon isleeyahay oo laba qaybood ah laftirkeeda waxaa waaye waa luuqadda language so waa inaad taqaanid englishka so language markaan kama hadlaya programming language waxaan ka hadlayaa luuqadda englishka saa ogtiin wax kastoo ku qoran yihiin micnaa coding wuxuu ku qoran yahay english documentation wuxuu ku qoran english waxyaalo badan english ku qoran yihiin midda kale waxaan rabay inaan ma rabin inaan tan aan sheego oon dadku soo bandhiga laakiin gabi school insha allah waan ka baxaynaa just coding base insha allah schoolka waxaan bilaabi doonaa koorsooyin ama mentorship dhinaca luuqadda englishka waxyaalo kala duwan topiga kala duwan marka englishka qofku inuu yaqaano waa muhiim maxaa yeelay wax kasto english ku qoran yihiin hadda markii la fiiriyo documentationka fiiriso website-ada codinka maxaa la jiray wararka so at least inaad ka garanaysa englishka aqrintiisa fahankiisa iyo xoogaa ku hadalkiisa inaad garan kartid oo fiicanta maxaa yeelay mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad company u bilaawdo inaad u shaqaysid waxaa laga yaabaa fursad inaad hesho aad ka hadashid waxyaalaha aad soo bandhigaysid waxaasoo dhan iyo communication aad samaynaysid marka way fiican tahay inaad waqti ku bixiso englishka practice garayso maybe school u aado private school u aadi kartaa iskuullada localkaada englishka baraayo englishkana wuu kala yahay mid oo just iska jajabse ah iyo mid wuxuu kala yahay academica marka waxaad isku dayeysaa markaad kan hoose soo baratid inaad xoogaa kor u qaadid oo haddana iskuulga aadid at least aad geliso waqti dheer si aad englishka xoogaha practice ku samaysid aad joogtaysid aniga bilowga markaan englishka baranayay of course kuma dhalan englishka aniga waxaa maraykanka waxaa imaaday anoo teenager ah so markaas micnaha markaan bilaabayay xoogaa waan garanayay oo waan jajabsan karay micnaha waxyaalahan dalbanaya waxaasi all that stuff ii fududeed laakiin haddaa arto wixii inay aad maalin kastaa ku hadashid oo ku noqdo wax fudud waxaa u baahna more practice so waxaan idhi what is the best way so waxaa laga yaabaa intiin inaad la yaabtaan intaan waqtigaas adiga waqti hore oo la dhihi jiray baltalk wax la isticmaali jiray barnaamij lo baltalk oo software ah waa qolal basically chat rooms camal waa basically so chat roomskaas maybe waa taqaana baltalk wuxuu yahay ma rabi inaan gaskaray laakiin in dhalinyaro ila socota inta badan so baltalka marka wuxuu ahaa meel chat rooms ay dadka soo galaan aniga waan geli jiray so meeshii aan geli lahaa kuwa soomaalida waxaan rabay englishka inaan practice gareeyo so waxaan galayaa kuwa englishkaan galayaa mar qaarkood waxaan galayaa kuwa la iska hadlaya waxaa la iska hadlaya laakiin marka dambe waxaan la qabsaday kuwa islaamiga aan la qabsaday waxaan arkay waxaan micnaha laba waxaan samayn karaa aniga oo micnaha faa'iido imaanayso for example dacwadii waan samayn karaa oo gaaladii aan la sheekaysan karaa la hadli karaa englishkana waan practice garayn karaa marka waxaan waaba laba faa'iido oo meesha igu jirto waayaba maxaa ugu khasaarinaya waqtigeyga meelo kale so xoogaa englishka aqaanaa ku jajabsada waa kuwada meelaha qaarkoodna laguma dhahaa englishkaada muxuu jajab u yahay ama englishkaada muxuu u yahay dadko dhanaa saas englishkooda jajab ah dad badanoo caraba ku jiro dad badanoo waxaa ku jiro international ah kulligood englishkooda accentia ku jiro wax kastaa ku jiro waa la iska jajabsanaya anigana waxaa yidhi you know what waa jajabsanaya ani laftirkeyga
waan waday wax badan iga caawisay siiba dhinaca confidence-ga hadalka inaan micnaha aan dareemo in aan kalsooni igu jirto hadalka in aan ereyo vocabulary badan aan ka helay oo dad kale aan ka bartay aniga isticmaalay isla markaasna waxaan fiirinaya bugaaga akhrinayay filimaanta oo English aan daawanayay maxaa la jiray wararka waxaan ku daawanaya English so waxyaalo badana waxaan geliyay waqti in aan English si fiican micnaha uga hadlo laakiin alxamdulillah isla markiiba dee waxaan bilaabay school oo American joogaa so school aa bilaabaysaa qofkas English uu ku hadlaya so really becomes super easy aad u fududahay inaad baratid luqadda markaad joogtid wadankii looga hadlayay oo qofkas uu ku hadlaya xataa dadka Soomaalida xataa English kugula hadlaan inta badan then just becomes like super easy wuxuu noqonaa biyo caadi cabays camal uu noqonaa maba dareemaysa inaad luqadda baranaysa in kale waa iska baranay un maxaa yeele maalin kasta waa ku qasbantay inaad samayso laakiin haddaad joogto wadan aanan micnaha luqaddaas looga hadlayn waa sida anigoo baranayo luqadda carabiga camal anoo joogo wadan Maraykan joogo aad ay u adag tahay waa inaad gelisid effort fara badan oo micnaha waa adiga oo hir micnaha webiga geeska kale u socdo waa marka Englishka luqadda Englishka muhiim waa qofku inuu barto maybe koorsaan soo wadnaa mustaqbalka oo aan la socodsiinaya insha Allah oo mentorship oon rabno in aan micnaha macallin u soo raadinaynaa English baro si ay micnaha ardayda ay u bartaan English marka hore dan ka bacdina u galaan waxyaalaha kale ay rabaan English markasta wuxuu ku furaya fursado carrada ka badan uu ku furaya bas ma ahan inaad English u barto coding aan baranaa bas ma aha laakiin English waa communication waxa waa turjubaan uu ku furaya oo waxba turjubaani kartaa waxyaalaha qori kartaa communication la sameyn kartaa dad English ku hadlo adduunka aad u badan dadka English ku hadlo marka waxaa la lahaanaysa waxaasoo dhan waxaa daawan kartaa videoyaal English ku hadlaayo fikrado cusub iyo fursado cusub aad ka heli kartaa waxyaalo fara badan oo noocaas waxbarasho cusub waxyaalo kale aad baran kartaa aan codingka ahayn oo carrada ka badan aad baran kartaa so Englishka muhiim waaye I would say is number one markay noqoto haddaad rabtid inaad faa'iido badan ka heshid codingka ama programmingka inaad ka heshid midda kale waxaa waaye oo ku dhex jirta taas oo aan isleeyahay micnaha aan rabo inaan halkaan number one ku dhex daro waxaa xisaabta mathka so xisaabta malihi inaad baratid waaye discrete math mathematics inaad baratid maxaa la jiray xisaab khatar oo laga yaabay kaala iska aragay oo university level professor inaad ku noqoto lama rabo waxaan ka wadaa just basic stuff oo qof kasta uu yaqaano oo college ku jiro so haddaad soo martay micnaha iskuulka sare ama high school college ku jirtid xisaabaadka taqaanid arithmetic algebra maxaa la jiray xoogaha yar oo inaad taqaanid geometry and definitely trigonometry waa muhiim waa trigonometry inaad taqaanid waa inaad taqaanid xoogaha yar oo calculus hataa way fiican tahay laakiin I will say calculus qasab ma inaad boqolkiiba boqol fahansan tahay ama boqolkiiba boqol taqaanid laakiin wax kasta inaad fikrad ka haystaa fiican si haddii ay ka hor imaado aad micnaha u garan karto aad dhihi karto waxaas waaye codingka isaga sidiisa dhanba waxaa waaye waa logic iyo xisaab waaye so haddii aad xisaabta fahansan tahay codingkana waa fahmaysaa maxaa yeelay codingka waa black and white waana ka hadli doonaa arrintaas laakiin black and white waa micnaha ma laha wax oo dhexdhexaad oo laga yaaba xisaabta laftiga actually waxay leedahay waxyaalo xoogaha saa iska micnaha complex numbers waxyaalo noocaas iska jiro laakiin codingka waxaa black and white wax ma jiro oo dhexdhexaad ahoo shaki ku jiro ma jiro aan ka ahayn luqadda javascript oo ayada shaki ku jiro luqadda javascript markaa gelisid markaa dhahdid one is equal to one markaa dhahdid hadduu one-ka uu yahay ku jiro string hadduu yahay lamid ma ahan uu leeyahay waa false uu ku leeyahay mar qaarkood wuxuu ku leeyahay true waaye waxay ku xiran tahay equationka waxay ku xiran tahay baalka equalkaada ku xiran tahay 2 equal 3 equal yeah so javascript waxaan ka ahayn luqadaha kale intooda badan waa logicooda iyo php luqadaha kale logicooda khatar weeye calaa kulli xaal so I'll say math iyo English number one inaad taqaanid siiba more English inaad taqaanid way fiican tahay okay number two waxaa weeye midda aan isleeyahay qof kasta oo kusoo bilaabay waa hore soo bilaabay inay iska barbartaan computer iskaga ciyaaraan ay micnaha arkeen inaad taqaanid basics of computer ma aha basics of computer markaan ka wado kama wado inaad computerka gudaha usii gasho ku noqoto khatar waxaan ka wadaa computerka say u shaqeeyaan waxaan computerkan boxkan computerka oo meesha yaala su u shaqeeyaa maxaa ku dhex jiro components kala duwan waa maxay arrimahan mar badan aan ka hadlay inay muhiim tahay inuu qofka yaqaano
computerka fundamentalskiisa inuu yaqaano so maxaa ku dhex jiro inaad micnaha aad xiiseynaysa inaad ogaatid waxa ku dhex jiro computerka waa muhiim wax kastoo qalab inaad xiiseynaysa habka u shaqeeyo waa muhiim laakiin siiba computerska hadaarta inaad baratid computerska wuxuu ka leeyahay hardware iyo software hardwareka inaad at least qasama inaad wada taqaan hardwareka maxaa yeele isbedelaya hardwareka mar kasta oo hadda waxaa jiro technology cusub waxyaala cusub jiro wax kasoo yaraadeen everything's different laakiin inaad taqaanid waxyaalaha mainka motherboard inaad taqaanid maxaa la jiri fiilooyin kala duwan hardwareka waxaan ka wadaa hard driveka inaad garanaysa isu shaqeeya memoryga CPU-ga waxa CPU-ga muxuu yahay what is CPU soo shaqeeya waxaasna videos ka daawan kartaa waxaa jiro videoyaal badan oo internet ku jiro tiin waxay ku laabanaysaa luqadda Englishka inaad yara fahansan tahay waxay ka caawinaysaa inaad fahantid jaamacadaha Harvard waxay soo geliyaan koorsooyin oo computers ku saabsan meelo badan waxaa la soo geliyaa dad sharaxaya computers all that stuff waxay ka caawinaysaa inaad midda kale waxaa kaloo samayn kartaa haddii aad fursad u hesho ama aad heli karto computer oo halaabaya soo qaadan kartaa waxaad isku dayi kartaa inaad hagaajisid okay waxaad samayn kartaa qaybihiisa kala duwanaa kala bixbixin kartaa hadduu halaabo kabsoqaad computer free ah heli kartaa qaarkood meelaha joogtay ku xiran tahay laakiin computer free oo dad iska tuuraan haddaa hesho then waxay ku noqonaysaa sida camal waxaa weeye waa labrat waa waxaad ku ciyaaraysid waaye waxaad soo qaadaysaa tuulooyinka kiyaawaha waxyaala yar waxyaala lagu furfuraa soo qaadaysaa waa kala furfuraysaa waxaa fahmaysaa qaybihiisa kala baxsan waxaa aadaysaa meelaha dukaanada qalabaadka loo gado waxaad soo raadinaysaa wax ka baqan waxaa laga fiilayar inay ka maqato xir ka maqato wixii isku xirxiraysaa waxaa fiinaysaa inuu shaqeynayo muxuu u shaqeyn la'yahay waxaa gelinaysaa waxyaalo kala duwan adiga waxaa ku mashquulaysaa computerska si u shaqeeyaan in cabaare waxaad isku dayaysaa inaad fahantid exactly waxaan si u shaqeeya waa maxay waxaan isla markaasna waxaad daawanaysaa videos iyo casharo ku saabsan computerska waxay yihiin si aadan micnaha aadan isku gubin waxaa yeelay hardwareka ku gubayaa korontuu leeyahay inaad iska ilaaliso waaye so you have to ground the electricity korontada waa inaad meesha ka bixiso so marka hore not only korontada inaad fiilada ka bixiso but you have to also ground micnaheedu waa inaad staticska meesha ka bixiso maxaa yeelay haddii aad adiga oo ayadoo statics ku jiraan oo koronto micnaha haraa meesha ayadoo ku jirto haddii aad qalabaadka wixii hagaajiso ama aad taleefonkaada ku dhejiso ama wax ku samayso waxaa laga yaabaa inuu shortcut micnaha inuu meesha dhan gubaa laga yaabaa ama dab bilaabo xataa dhici kartaa على كل حال كمبيوتر بيسكس كيسا وحكى باهن تاي كمبيوتر بيسكس وحكى كم ده typing right so a lot of times لأن يرد حنا شيء عندها typing ويفضل ده إلا practice كره ويب سايت بدنا free أهجره أو typing أكبرن كتير وtyping هذا إنه قطري هاي بلا typing وحبكم مشتغلين ما ترى ده كمبيوتر فيرينيس أنت فيرينيس وقت يكالو معه كيبورد كان فيرنا هل فرن كم مدة مشتغلين تاس إن اللي كبر حواي right so keyboardka fiirintiisa dhan bayna iska dhaaftid waaye waa inaad practice geliso website free ah jiro just google waxaa gelinaysaa free keyboard practice aa gelinaysaa waa website free ah jiro ku practice gelin kartid game waxaa jiro free loogu talagalay ilmaha bes looguma talagelin typing inay bartaan qof kasta uu baran karaa typing aniga waxaan ku bartay of course intaa wax type galinayay iyo marar badan oon galay oon aan game ciyaari jiray oo typing ah يعني ciyaari jiray so game badan waxaa jira typing lagu sameeyo high school ka xataa nagu bari jireen typingka muhiim why typingka muhiim u yahay maxaa yeelay haddii aad si tartiib waxay u garaacaysid wuxuu kaa qaadanaya mental load right so mental loadka ama maskaxda fikirkeeda yaa xal rabaa inuu ahaado codingka ma aha inuu ahaado keyboardka soo ma so waa sida luuqad camal adoo baranayo hadda English markaa ku hadlaysid ama ka soo qaad Englishkaada waxa laga yaabaa inuu English aad barbarinaysid u yahay marka luqadda ku hadlayso luqadda aad ka fikiraysaa wixii erayada isticmaali lahayd ma waxa isticmaashay grammar fiican ma past tense isticmaashay ma present tense isticmaashay ma si sax ma u isticmaashay luqadda aad ka fikiraysaa meesha ka fikiri lahayd fikradii aad dadku u sheegaysay ana af Soomaali markaa ku hadlayo fikradda kama fikiraay right so fikrad maxaan ka wadaa kama fikiraay luqadda waxaan ka fikiraay fikradda bas waxaan ka fikirayaa waxaan dhihi lahaa laakiin haddaa luqad baranaysid oo ay kugu adag tahay waxaa ka fikiraysaa luqadda isticmaali lahayd iyo waxaa ka fikiraysaa isla markaas fikraddii wixii aad dhihi lahayd sidaas ay ugu adag tahay dadka inay af kale ku hadlaan maxaa yeelay waxay ka fikirayaan laba waxay ka fikirayaan meesha qofka native-ka ah ama u dhashay luqadda una ka fikiraynin hal wax adi marka waxaa tahay your one point is low tahay already same sidoo kale
keyboardka inaad taqaanid typingkiisa oo easy ku yahay waxay ku fududaynaysaa qof keyboardka khatar ku ah fast ku ah iyo adiga haddii lasoo garab dhigo laakiin codingkiina iyo programmingkiina oo isku mid yahay oo skillskiina adiga slow noqonaya haddaa keyboard aqoonin right so keyboardka haddaa fiirinaysid you already saanta u fiirisaba already ninka wuxuu qoray 10 lines of code uu qorayba adigana keyboardka waxaa raadinaysaa r aa raadinaysaa ilaa adiga 10 ilbirqsi aa raadinaysaa r waxaa raadinaysaa l aa raadinaysaa allah away ft ma la rabo waxaa la rabaa keyboardkaada faraha inuu saaran yahay aad garanaysid xaraf kasta meeshuu ku yaallo isla markaasna adoo fiirinayn inaad bararaq siin kartid aa la rabaa waxaa jira website aad ku fiirin kartid speedkaada intuu dhan yahay keyboardka tana whole topic waaye on video dhan ka samayn karo laakiin muhiim waaye inaad taqaanid fast keyboard typing okay haddaa rabtaa inaad ila tartantaan keyboardka waan samayn karnaa I'm just kidding laakiin aniga keyboard typingkayga waa very fast laakiin micnaha ma ahan abnormal ma aha waan type garayn karaa anigoon keyboardka fiirinaynin okay midda kale oo computer basicska inaad taqaanid waxaa ka mid ah inaad u fikirtid sida computer inaad u fikirtid okay si u fikiraysaa sida computer waxaa u fikiraysaa waxaan la binary binarygana inaad taqaanid waa muhiim laftirkiisa waa maxay binary waxay ka mid tahay computerska aaskiisa fundamentalskiisa ka mid tahay waa computerka siduu go-aan u gaaro waayo iyo luuqadda suu u sameeyo iyo sida uu wax usoo sawiro waxyaalahan arkaysa computerkaada ku yaalo dhan videogana hadda daawanaysid oo telefonkaada ama computerkaada ka daawanaysid basically waa binary waaye binary code waaye binary code waa computerka si u shaqeeyo waaye korontada ku shaqeeyo magnetka ku shaqeeyo yaa binary code waxyaalaha qoraalada arkaysid oo screenkaada ku yaalo kulli waxa waaye waa asalkooda waa binary okay luuqad kastoo programming as waxay u degaandegaysaa binaryga u degaandegaysaa right binaryga marka waxaa waaye ones and zeros aa laga wadaa waa hal iyo laba maxaan ka wadaa hal iyo eber waa hal iyo eber so hal iyo eberkaas ku shaqeeya computeradoo dhan ku shaqeeyaan of course waxaa soo baxay computer cusub iyo habab cusub wax loo sameeyo laakiin fundamental asaaska taas waaye so inaad u fikirtid sida computer camal oo aad og tahay computerka inuu u fikiraayo black and white ones and zero on and off intaa bas uu ka fikiraa computerka ma fikiraayo fikrada dhexdhexaada sida AI da camal ma ahan oo mar qaarkood ku fikirayso wax sax ah mar qaarkood wax aan jirin okay so binary sida computer ku fikir oo ah in ay waxaan yihiin black and white waa ones and zero waa computerka been ma sheegayo adiga wax ka maqan yihiin camal adiga waxaaday shaki ku jiraa laakiin computerka hadduu ku dhaw waxaasa qaldan wax baa qaldan wixii noqoto okay taas waxay ahayd number 2 ay ahayd number 3 waxaa waaye critical thinking number 3 waa critical thinking iyo logical thinking okay critical thinking waa maxay critical thinking waxaa waaye inaad u fikiri karto si fikir dheer ah ama si micnaha fikir aanan service level ahayn oo micnaha aan ahayn fikir yar oo aanan aad looga sii fikirin wixii right so critical thinking waxaa waaye inaad markii wax lagu dhiibo fikrad aad kasii fikiri karto waa maxay computer maxaa waaye binary muxuu binaryga saas u sii yahay so inaad kasii fikirto okay waan kartay computerka maada boardka iyo CPU ga waxaas waan kartay laakiin why u shaqayn laayay waxaas say u shaqaynayaan waxaas maxaa keenay and inaad kasii fikirto binaryga laftirkiisa muxuu yahay binaryga hoos u sii galaya waa magnet waxaas waaye koronto and then hoos sii galaya waa atoms right so critical thinking-ka waxaa weeye waa also waxaa soo hoosgalaya waxyaalo badan waxaa soo hoosgalayo problem solving okay in aad tahay qof u fikiri karo tanna waa waxyaalo ma ahan skill oo hadda aad meel kasoo qaadanaysa waa wax aad practice garaynaysid waa u baahanta inaad practice garaysid okay so problem solving-ka waxaa ku baraya xisaabaadka right so xisaabaadka markaa wax xisaab samaynaysid waxaa lagu leeyahay proofka inaad tustid waa inaad si logic u fikirtid micno may samaynaysaa tan haddii 1 lagu daro ama haddii 1 divided by 0 la dhaho why ay u noqonaysaa saan why u noqonaysaa undefined ama kaba soo qaad ina critical thinking-ka ina waxaa ku jiro waxyaalo badan problem solving ku jiro attention to detail ku jiro attention to detail-ka waxaa weeye in aad waxa yaryarka aad arki kartid waxyaalaha yarka qaladaadka maalmahan waxaan barayay ardaydii casharka ugu horreeyay oo HTML-ka CSS-ka Gabi School arday badan waxaa arkaysaa micnaha of course ayaga ma ahan developers ma aha laakiin arrimahan critical thinking-ka iyo attention to detail meel kasta ka caawinaysa adduunka attention to detail waxaa ka mid ah marka
HTML ay qorayaan right structureka HTML-ka caadiga ah laakiin spellingka meel yar ka qaldan tahay ama waxay iloobayaan wax yar oo macnaha calaamad qaanso yar iloobayaan ama closing tag yar iloobayaan and then wixii dhan iska kala xidaadanaa markaas wuxuu ku bixinayaan saacado in ay solve gareeyaan waxaas laakiin ani markaan fiiriyo all I do is just waxaan fiirinaa okay spellingka sax miyaa number one tanna waxaa weeye waa troubleshooting waaye so taasna waa skill kale u baahan tahay troubleshooting marka ugu horeysa waxaan fiirinaa spellingka ma saxan yahay wixii dhan closing tagska ma jiraan maxaa dhihi jiray wax qaldan ma jiraa oo dhinaca HTML-ka ah ma jiraa wax qaldan and then dhinaca CSS-ka maxaa ka qaldan and then markii aan fiiriyo waxaa arkaysaa waa spelling problems waa wax la iloobaya CSS-ka waxaa la iloobaya hal qaansaa la iloobaya one of the curly brackets la iloobaya so qaansadii lagu furay qaansadii lagu xiray miduu iska iloobaya qofkii boom waxa uma shaqeynayaan marka everything waa red right so hadhan waa red ay noqonayaan ama color kale ay noqonayaan now marka tan attention to detailka macnaha qofka in uu arki karo waxyaalaha yaryarka ah waa waxyaalaha ugu muhiimsan ka mid ah programmingka inaad fiirin kartid codeka aad dhigi kartid okay waxbaa ujeedaa macno sameynin waxaa ujeedaa wax ka maqan yihiin dhibica halkaas ka maqan ereygaas misspelled waaye wuu qaldan si u spell garaysan yahay tan waxaa ku laabanaysaa luqadda englishka inaad taqaanid hadduu ereyga english yahay right so ereygaas spellingkiisu waa qaldan yahay marka qaarkood waxaa ku caawinaya barnaamijyada debuggingkii tuulasha ku caawinaya laakiin intaan debugging waxaas la gaarinba inaad adiga ahaan aad fiirin kartid wixii aad garan kartid waxyaalay ku kala duwan yihiin inaad garan kartid also logical thinking of course waan dhahay logical thinking waxaa waaye inaad waxay macno inay sameynayaan inaad fahmi kartid waxyaalahaas dhan waxaa weeye waa waxyaalaha aqrin kartid bugaagaa jiro laga aqriyo critical thinkingkaasi kor loogu qaado attention to detailka kor loogu qaado waxaa jiro videola ka daawan kartid so youtube camal gelin kartaa sideen critical thinking kor ugu qaada logical thinkingka waxyaalahaas oo dhan so taas muhiim waaye inuu qofka uu nan just u fakirin sida camal macnaha waxaan computerka magic camal inuu u shaqeynayo computer magic uma shaqeynayo wuxuu u shaqeynaa computerka saa adiga u amartay bas u shaqeynaya so waxaa la rabaa adiga inaad tahay qof macnaha garan karo waxaan meeshu ka imaanaya meeshu u socdo inaad fikri karto okay waxaan macno ma sameynayaan kan hadduu kan ka horeeyo macno ma sameynaysaa intaan la gaarin xataa codingka adduunka caadiga real world inaad ku apply garayso for example camal wararka camal iyo idaacadaha iyo newska waxaas critical thinking waa ku apply garayn kartaa waxaad dhihi kartaa okay idaacaddan warba ii sheegaysaa laakiin warkan intuu ka imaanaya yay dan u tahay in warkan sheego taas waa critical thinking waay maxay iigu sheegayaan waxaan qofaa wax kuu keenayo why iigu keenaysa waxaan mar badan waxaa ku arkay arrimahan youtube-ka iyo tiktokan ku arkay arrimahan oo qof uu sameynayo youtube-ka siiba anigana xataa mar qaarkood inaan sameeyo way dhacdaa laakiin waxaa arkaysaa youtube qofaa video sameynayo dhahayo something like waxaa hayaa tool oo ChatGPT dhulka gelinaya camalka soo qaad or something like that oo waxaa hayaa tool oo sanisan oo qatarka haliska arag oo waxaan sameynaa adiga title oo attention grabber oo sameynaya ama ma dhahay tool wuxuu dhahay something like topic uu ka hadlaya wuxuu leeyahay is AI ma developerska suuqa ka bixinaysaa laakiin videoga dhexbartama markaa marayso qofka wuxuu ku leeyahay videoga waxaa sponsor gareeyay waxaas okay leeda okay rag sponsor gareeyay ilaan topican ka socdaa ma ahan ninkan fikradiisa ma ahan asaga waxaan topigiisa ma ahan mar qaarkood way tahay of course malihi sponsor kasta waxaa waye waa qashin camal malihi laakiin meesha uu ka socdo topica way fiicanta inaad ogtahay meesha ka socdo qofka hadalkiisa way fiicanta inaad ogtahay arrimaha politicska arrimaha idaacadaha maxaa la jira qof kasta wax kuu sheegay danihiis maxaa ka dambeeya waxaan qofka in waxaan leeyahay why u dhahaya waxaan waa critical thinking waaye waxaa ku apply garaynaysaa logic iyo critical thinking yaa ku apply garaynaysaa wixii iskama qaadanaysa wax kasto macnaha dad waxaa jiro oo waxaa loo sheegaya waxay leeyihin markiiba emotional inay noqonayaan oh my god ay leeyihin laakiin waaba AI videogay daawanayaan right so video daawanayaan waxay arkayaan wax dhibaatay ama cunug wax ku dhacay wax saas camal maaldhow waxaa arkaya cunug oo yaxaas albaabku soo maraayo oo cunug qaadan rabo AI waaye right so haddii aadan la socon up to date ahayn isla markaas critical thinking isticmaalaynin iyo attention to detail because attention to detailka waxaa waaye inaad ogtaa waxaan AI inuu yahay waxaa arkaysaa dadka si u dhaqdhaqaaqayaan iyo wax nooc kala arkaysaa haddaa fiiriso wixii right laakiin wixii ma fiirinaysa critical thinking ma isticmaalaysid logical thinking ma isticmaalaysid waaba iska qaadanaysaa wixii markaasaa lagu shubaya sidii camal inaba caadi ahayn right adigana waxaa noqonaysaa weel wax lagu shubo laakiin haddaa critical thinking isticmaalaysid
waa filter garaynaysaa wixii filterna ku samaynaysaa waxaa kaloo isticmaali kartaa annaga dad muslimiin aan nahay soo diintanada isticmaalina waxaan macquul miyaa diintanada micnaha may ogoshahay waxaan micnaha diinta maxay ka sheegtay ana diintii aad baranaysaa diintii waxay ku noqonaysaa filter ku noqonaysaa so filter waxay haystaa diiniyan filter waxay haystaa caqligaada ilaahay ku siiyey filter waxay haysataa attention to detail adiga marka iskama kaa soo geli karo oo waxa rabo iskama kaa shuban karo you know so critical thinkingka iyo logical attention to detail waxyaalahaas dhan muhiim waaye in qofka uu practice gareeyo oo daily maalin kasta wax kasta oo loo sheego wax kasta oo la siiyo wax kasta qof kasta oo interaction la sameeyo ama qof kasta oo la hadlo inuu dhaho okay qasama qof kasta inuu attentionkiisa ama micnaha waxaan ka wadaa wuxuu wato qofka inay qalad yihiin laakiin meeshuu ka imaanaya qofka inaa fahmi kartid muhiim waaye okay so taas waa ku dheeraanay laakiin waa kasii gudbaynaa waxaan marayna tiri number 4 waxaa weeye waxaan ku laabanayna arrimihii technicalka so waa inaad taqaanid networking okay so tanna maybe waa controversial laakiin program intaadan baranin ama coding baranin waa inaa xoogaa wax ka taqaano networking waa inaa wax un ka taqaano waxay tahayba haddana networking hal xaba ka aqoonin networking-kan waxyaalo badanaa soo galo ma aha just only networking marka lagu dhaho fiilooyin maaha waxaan ka fikirayno right so aniga fiilooyinka kama wadi iyo sida loo sameeyo maxaa la dhihi jiray loo xiro routerska iyo connection internetka loo xiro kama wadi waxaan ka wadaa conceptiska networking-kan ka wadaa maxaa ka mid ah conceptiska networking-ka number 1 internetka suu shaqeeya inaad fahansan tahay video aan ka sameeyey hadda aaday channelka Gabi School waxaa jira video aan ka sameeyey la dhaho the history of internetka muxuu yahay why oo aad ii daawanaysaa hadda see ii daawanaysaa see ku dhacday aniga oo jooga Mareykanka inaan video upload dhaho adiga aad daawatid see ku dhacday waxaas macquul maba ahaba sidee dhaqso u daawanaysaa videogan sidee ku dhacday waxaas sidee high quality ugu daawanaysaa videogan network waxaa arrintaas waxaa keenaya waa network waaye history of internetkana inaad baratid xoogaa taariikhda internetka meeshay ka imaaday of course taariikhda Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa micnaha of course conceptska iyo fikradaha ay aas ku ah oo hoos ku shaqeynayso dad kale laga keenay laakiin dadka caan bixiyey oo xoog saaray waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Europeanka iyaa ka mid ah markay arkeen faa'iidadii leedahay iyo waxay isticmaalaan waxyaalaha ayaga ay leeyihiin oo qalad ah laakiin way hormariyeen waxaa ka mid ah taariikhda hal taariikh waaye waxaa ka mid ah in internetka organizationka la dhaho ARPANET waxaa waaye waa hay'adda waddankan Mareykanka difaaca waaye dhinaca difaaca u qaabilsan in ay fangelisay ama dhaqaale ay gelisay jaamacadaha sida Yale iyo Harvard iyo dhaqaale gelisay dhaqaalihii gelisay iyo sponsorkii barnaamijyadii gelisay ay lagu bilaabay in internetka la hagaajiyo so dada ka fikiryo dhahay okay waxaan sameynaynaa oo dadka jaamacadda joogay 2 computer isku xireynaa okay 2 computer fiilaal isku xiraaya no problem okay marka ay soo dirtay file kalkaan imaanaya good now maxaa ku xiga marka taas waxaa ku sii xigto in computer badan lagu xiro hal fiilo macnaha fiilooyin badan isku xiro maxaa dhacaysa markaas waxaa loo baahan yahay markaas central network loo baahan yahay computer kee maamulaya wixii right so computer la isku xiray jaamacaddan Harvard camal computer la isku xiray dawaq weyn oo computer isku xiran yihiin fiilooyin badan isku xiran yihiin ka bacdi network la sameeyo computer jaamacadda Harvard waxay fahamtay inay muhiim tahay in computerada jaamacadda isku xiran yihiin kulligood ayagoo fiilo ah that's fine fiilo hadii yihiin macnaha wireless ma jirin waagaas laakiin waxaa also socday isla markaas waxaa socday tartankii dhinaca hawadii cirka oo dayax gacmeedka cirka loo diraayo yaa socday markaas so ayada oo ka socdo oo mustaqbalka la isticmaali doono satelliteska in internetka lagu diro yaa isla markaas waxaa socday tartan iyo horumar dhinaca fiilooyinka iyo qalabaadka connectionska horey waxaa usii jiray of course waxaa usii jiray telefonka right telefonka hore usii jiray telefonka maxaa kasii horeeyey telegramka waxaa weeye balkan maxaa la jiray morse codeka ddd la siinayo oo meel kale adoo joogo aad qori karto wixii so ciidamada waxaas isticmaali jireen 1930 isticmaali jireen and then telefonada soo baxay telefonadu waxay la mid yihiin exactly waa sida telegramka laakiin difference u dhaxay waxa waaye coday gudbinayaan right telefonada coday gudbinayaan marka
ayadoo telefoonada la haysto oo mar inaan ku dheeraa taariikhda laakiin ayadoo telefoonada la haysto ayaa internetkii waxaa la ogaaday in fiilooyinka telefoonada la isticmaali karo in internet lagu gudbiyo marka tan waxaa la ogaaday okay taas ma shaqeynayso maxaa yeelay internetka wuxuu u baahan yahay waxyaalo badan xawli waa culus waaye wuxuu u baahan yahay waxyaalo ka badan fiilooyin cusub la bilaabay in la dhiso oo waddanka Mareykanka gees lagu dhisay connection kala sameeyay marka networking halkaas uu ka imaaday number 1 number 2 networking-ka inaad taqaanid protocolska networking-ka annaga waxaan soo galay of course TCP/IP yaan soo galay oo ah transmission protocol ama transmission control protocol iyo IP oo ah internet protocol basically computer kasta oo internet ku xiran wuxuu leeyahay IP addresskaas waxaa lagu garanaa computerku yahay iyo addresskiisa lagu garanayo sida camal gurigaada camal address uu leeyahay arrimo badan oo noocaas ah oo protocolska kala duwan iyo kuwa hadda soo baxay kuwa cusub iyo maxaa la jiray kuwa hore oo dhan inaad wax ka fahansan tahay maxay tahay waxaan horta why oo waxaan isku qasan yihiin sidee wax loo diraa sidee wax loo so networking-ka wuxuu aad kaaga caawinayaa inaad fahantid markii aad dhisaysid marka coding baranayso wuxuu ka caawinayaa arrimaha la xiriiro HTTP request inaad fahantid waa maxay HTTP request waxa waaye waa markii la diraayo data loo diraayo meeshaan la dhaho API aad ka soo jiidanaysid information yaa la dhahaa HTTP request so codsiyaa ka diraysa computerkaada waxaa u diraysaa API ama meel server u diraysaa serverka codsiga kuu soo celinayo HTTP request HTTP waa protocol right so protocolkaas inaad fahantid protocolkaas waxay soo gashaa protocolada kale oo ahaa TCP/IP iyo kuwa la xiriiray IP addresski waxyaalahaas right isoo hoos gashaa HTTP requestgaas marka website-kaasna wuxuu leeyahay HTTP waa garanaysaan marka adiga waa uu ku soo galaya wixii so adiga iska baranaya coding-ka waxaa ku soo galaya HTTP request waa maxay HTTP request and then waxaa weeye waa transfer protocol waay now maxay u tahay transfer protocol yaa wax transfer garaynayo haddii aadan soo baran networking-kii then tan micno ku sameynayso see wax loo transmit garaynayo movie waxaa jira oo actually cartoon ah oo dhawaan la soo saaray I don't remember the name of it but basically waxa I think waa Disney movie waaye oo micnaha character-ka wuxuu ku dhex jiraa game waaye game ku dhex jiraa gamekaas marka maybe hoos ugu soo qori karaa qof markaan sharax waa garanaysaan game ku dhex jiraa character-ka gameka marka waa gamekii hore waaye arcade gamekii waaye arcade gamekii ku dhex jiraa wuu ka baxaya arcade gamekii wuxuu galayaa fiiluu galayaa wuxuu galayaa internetkii so arcade games saa garanaysaan 780 qatar waa arcade games right laakiin arcade games kuma xirnaan internetka intooda badan so internetka way ka baxsanayaan marka waxay sameeyeen characterskii ku jiray arcade gamekii iyo access waxay u heleen ninaa soo baxay basically oo fiilo soo qaaday game oo arcade game wuxuu ku xiray fiilo internet oo like ethernet camal isla markii wuxuu access u heleen internetkii adduunyo dhan waayo oo shopping iyo balaayo kala socota iyo pockets iyo maxaa la jiray waxyaalo kala duulaya diyaarada iyo kan kaaliska waxa xawli ku socdo wax kasto right wareera ka dhacay iyo lumitaan inay lumeen ku dhex lumeen internetkii so taas micnaha ani sababta u daawada moviegaas waxay ahayd just inaan because waxaan xiiseynayay inaan arko sida ayaga usoo present garanayaan internetka gudihiisa waxay ka dhigayaan camal marka waxay ahayd wax aqoon micnaha waxa ka baranaysid waa cartoon but like wax ka baranaysaa right so waa networking that's networking okay so midda ugu dambeyso bonus no dhimay ogo ha tagin midda ugu dambeyso oo number 5 waxa waaye parent recognition tan waqti badan kuma bixinayo parent recognition waxa waaye garashada shaxda ama garashada sida ay wax u dhigan yihiin right parent waxa sida wax u dhigan yihiin in micnaha haddii ka soo qaad aad samaysid waxa micnaha art artiga si u dhigan tahay art bis ma ahana ka soo qaad waxa samaysa waxyaalo oo Islamic calligraphy-ga camal so Islamic calligraphy-ga waxa waaye waa geometric shapes waaye so parent lane marka ama waa arkaysaa gabdhaha dharkooda xataa uu ku sawiran yahay waxyaalo oo soo la laabanayo iyo waxaa arkaysaa masaajidka camal markaa tukanayso waxaa arkaysaa meesha lagu tukanayo waxyaalo soo la laabanayo oo geometric ah ama isku jiro shapes isku jiro soo la laabana arkaysaa taas waxaa la lahaa parent ama waxyaalo soo la laabanayo yaa arkaysaa tan marka waxaan ka wadaa
inaad garan karto markay noqoto dhinaca computerska iyo programmingka codingka inaad garan karto pattern waxaa kaloo waad practice garayn kartaa waxaan marka practicing waayo so xisaabaadkaa ku practice garayn kartaa xisaabta dhan lagu sheega waa pattern recognition waayo so algebra camal basically markaa wax isku xidhaysid waa x aa lagu siinaya x waxay la mid tahay waxaas x is equal to 5 y is equal to 9 aa lagu leeyahay and then geliyaa lagu leeyahay now ruleskan isticmaal haddaad rabtid inaad binomialska kan samaysid aad kala bixisid wixii isku xirtid saan samee it's really simple haddaad fahantid pattern iyo sida wax u shaqeeyaan haddaad fahantid way fududahay waa la qabsan waxaa leedahay binomialska saan u shaqeeyaan kan saas u shaqeeyaa waa iloobay waa hore ugu dambeysay xisaabaad kan saas u shaqeeyaa then isma bedelayso that's it so ma jiro wax oo cusub oo lagu dhahayo oo tii hore saas u shaqeynaysa laakiin tan tii hore la mid tahay laakiin tan saan u shaqeynaysa ma jirto kulliga saas u shaqeynaya just numberska iyo wuxuu kala duwan yahay xarfaha base that's it right so xisaabta marka haddaad ku apply garayso pattern recognitionka oo dhahdid okay halkan soo sama saan lay baranayaa from now on saasaan uga shaqaysiinaya wixii codingkana waa sidoo kale sidii la uga shaqaysiinaysaa basically waxaad samaynaysaa oo keliya waxaad fahmaysaa functions ay u shaqeeyaan functions it doesn't matter luqadda programmingka aad tagtid functions isku si u shaqeeyaan right functions waxaa weeye marka hore waa keyword camal waxaad samaynaysaa function def wax noocaasaa samaynaysaa defka waa definitionka sida camal python wuxuu leeyahay parameters right parameters uu leeyahay wax la gelinayo dhowr waxaa gelinaysaa gudihiisa waxaa ku jiro waxyaala lagu habeyn karaa oo logic ah return waxbaa la soo celinayaa markii loo yeerayo waxaa u yeeraysaa functionka magaciisa waxaa siinaysaa wixii u baahnaa argumentskaa siinaysaa boom now it doesn't matter luqaddaa tagto function waa taqaanaa just itus leedahay si u shaqeeya luqadda hal mar waa gartay we're good to go maskaxdaadi ku qufulan tahayba now taas waxaa la pattern recognition alla ina isla markaa aragto blueprint now maskaxdaada ku jira you're done right of course waa practice u baahan tahay iyo waqti inaad geliso laakiin waxaan ka wadaa inaynan surprise kugu noqonin mar qaarkood mar badan waxaan arkay arday aad u baraa soo maaha qof kasta dadkan way kala duwan yihiin of course qof kasta wuu kala duwan yahay malihii macnaa qof kasta qasab inuu isla markiiba yaqaanin pattern recognition waxaas laakiin ardayda markaan wixii tuso waxaan tusaa ka soo qaad for loop saan u shaqaysaa right ama waxaan leeyahay if statement saan u shaqaysaa this is if statement conditional if statement waa if and then else if and then condition if waa condition else if waa condition and then else ugu dambeyso gudaha waxaa gelin kartaa intaa rabtido else if aa gelin kartaa waxaa dhihi kartaa if else if else if else if else if aa gelin kartaa doesn't matter mid ugu dambeyso waa inay ahaato else and we're done intaas waay okay conditionka waxaa rabtaa gelin kartaa waa inay ahaato true or false inay ahaato right true or false inay ahaato now ardaygii waxaasaa bartay lamuu qabsanin weli dhowr jeer aa u dhigtay if statement wuu arkay si u shaqayso weli markaad dhahdid if statement qor then wuxuu soo istaagaa blank ever right so now taas marka waxay ku tusaysaa qofka inuu waqti ku bixinin inuu fahmo waxaan si u shaqeeyaan pattern-kooda waxaan muxuu yahay blueprint-kooda muxuu yahay fundamental-kooda asaaskooda muxuu yahay now qaybtaas haddaan helo then anytime oo la ii keeno ilaahay may ahaato if statementiga adduunka ugu weyn haddii rabtaa ahaato waa fahmayaa it doesn't matter right so taas waxaa la pattern recognition qofka inuu arki karo wixii uu dhihi karo yeah I got it sidoo kale algorithm data structure dadka aad waxay inaa hadda classaan bilaabi doona algorithm data structure insha Allah oo gabi school dadka waxay aad ugu daateen taas sababtoo ah pattern recognition ma jiro mar haddaa fahantid hal problem mar haddaa fahantid asaaska algorithm data structure-ka aa fahantid data structureska kala duwan ma badno data structureska carabka ma badno that's a good thing algorithmskan carabka ma badno kuwa ugu caansan siiba it's not much right now haddaa la qabsatay pattern-kii ilaahuma ahaada kan ugu adag oo lead code problem lagu keeno waxay ku noqonaysaa macnaa of course boqolkiiba boqol easy ma laakiin practice badan u baahanta adigoo yaqaano algorithm data structure yaa weli waxaa u baahanta practice fara badan laakiin once a practice galaysa cabaar ay fahantid blueprintiga oo patternka mid kasto ay fahantid big o notationka maxaa keenaya big o notation inuu weynaado inuu yaraado inuu saa noqdo magacyadooda kala duwan dhara this and that haddaa fahantid then you're done wax dhan waa pattern recognition wax lagu sheegayo dhan waa pattern recognition right so programming iyo coding waxa dhan waa pattern recognition marka
taas waa number 5 oo waxyaalaha ugu muhiimsan ka mid tahay mid ugu dambaysa bonuska aan kusoo gabagabeynayo video waa dheeraad oo ka xumahay laakiin waxaan jeclahay waxyaalo badan in la share gareeyo mid ugu dambaysa waxa waaye oo bonuska ah subscribe ku dhuf insha Allah intaan bonuska gaarin inaan xasuusiyaan rabaa qofkii meeshan soo gaaray hadaa meeshan soo gaarto waxaa tahaybo a big fan aad tahay masha Allah waana ku mahadsan tahay aadan ugu mahadsan tahay halka waxaan ku weydiisanayaa waxaa waaye videogan inaad share garaysid haddaad share garin kartid in aad like saartid iyo inaad subscribe ku dhufatid haddaadan ku dhufanin haddaad subscribe ku dhufan intana soo gaartay waaba macnaha waxaa ku jirtaa baxra ku jirtaa waa in lagu soo qabto I'm just kidding laakiin mid ugu dambaysa bonuska ah in kusoo gabagabeeyo waxaa weeye waa dulqaad okay this one waa mid aan si adag ku bartay waaye dulqaad patience inaad lahaatid okay so inaad practice garaysid patience dulqaad inaad practice garaysid dad badan waxaa jiro oo arkay oo ka baxay programmingkii macnaha isku day inay barteen ka yaacay isla markiiba maxaa yeelay maynan u dulqaadanin okay that's it u dulqaadashada maxaa soo hosgalaya waxaa soo hosgalayo in madax adeega soo hosgalaya dulqaadashada madax adeeg I feel like qof kasta oo madax adag uu baran karaa programming haddaa madax adag tahay oo haddii lagu dhaho waxaas ma samayn kartid laakiin adaad waa samayn karaa maanta haddii lagu dhaho rocket scientist ma noqon kartid laakiin adigoo madax adag rocket scientist aa noqonaa soo istaagtay then aakhir waa noqonaysaa rocket scientist maxay loo madax adag tahay right so madax adayga marmar uu faa'iido leeyahay marmarna ma fiicno right of course haddii ay jiraan arrimo oo personal ah micnaha madax adayga ma fiicno waxaa fiican inaad qof wax fahmaya tahay oo wax micnaha la shaqeynaya dadka laakiin markay noqoto coding iyo programmingka madax adayga waxaan ka wadaa madax adayg caadi oo ma ahan wax qalad inaad madax adkaato waxaan ka wadaa persistence joogtaysi inaa wixii aadan give up aadan sameynin right midda kale patience-iga waxa soo galaya grind inuu qofka grind sameeyo grind maxaa waaye markii arrinta adkaato inaadan ka bixin right dagaalka markuu adkaado xabadii kululaato inaadan dhin baasha waa adkaatee niho meesha waan ka yaacaya aniga laakiin inaad ku adkaysato ina boor aad ku dhex jirtid aad ku adkaysa marar badan anigu dhacday mar waxaa jiray aan baranaya programming waagii aan ku jiray Lambda School wax xasuustaan dadka real fans ka garanaya waagii ku jiray Lambda School and there was a time oo aan arrimo badan i haysteen of course qof kasta waxa haysta arrimo badan marar qaarkood waxaa isku ka imaanaya wixii adoo baranayo iyo arrimo personal fara badan oo ku haysto aniga markaas aan baranayay Lambda School waxaan haystay family haystay mar waxaa jirtay aan family kasoo rarayay state kale oo Mareykan ka mid ah California Minnesota aan soo rarayay safar dheer waaye aniga bas familka diyaarada soo raaceen right ayaga diyaarada iska soo raaceen aniga waxaa la dhahay baabuur qaado oo truck weyn ah alaabta iyo gurigii wixii dhan ku aruuri soo wad oo Minnesota keen waa adiga ugu yaraan 3 beri waaye oo drive ah baabuurka aad wadaysid 3 beri oo straight aad wadaysid gaariga waaye right saasuu Mareykan aad u weyn yahay so 3 beri aad wadaysaa welina waxaan ku jiraa Lambda oo casharada la iga rabaa waxaana marayay meelaha ugu adag oo computer science ka ahaan marayay ma ahayn waxyaalaha react iyo ma ahayn iyo HTML CSS ma ahayn waxay ahayd qaybaha ugu dambeeyay ahayd oo weligeena arkin aniga weligay macnaha waqti ma gelinin waxaan ku jirnay blockchain la barayay sida blockchain ku shaqeeyaa project ka sameeya blockchain-ka computer architecture-ka muxuu yahay kan ka sameeya ana waxaan taaganahay safran ku jira waxay noqotay aakhir inaan la hadlo macalinkan dhahay okay dib ma igu dhigi kartaa class soo socdaan ka soo qaadanaya maxaa yeelay fursad u waay inaan macnaha ku imaado class-dan dib baa la dhigay class ku xigaan soo socdaan gale laakiin give up ma sameynin ma dhihin okay no arrimo badan oo personal ah haysto safarka dheer of course lacag badan aad ku kacayso guuritaan saa garanaysaan marka qofku guuro waa guri cusub inaad kiristid waaye alaab cusub in la gado waaye waxyaalo badan safarka baabuurka kiridiisa waxaasoo dhan dhexda markaa soo maraa xataa hotel iyo waxyaalo meel oo inaan ku nasto inay noqotay aad extra lacaga ku kacayso at that time-na of course aad ka garanaysaa software engineer ma ahayn ama ma haysanin business weyn iska ahayd waxyaalihii shaqooyinkayga hoose iska ahayn marka waan dhihi karay okay arrintoo adkaatay sheekada xabadda waa kululaatay now it's time to give up waan dhihi karay lakin I was like no anigan malihi aniga waxaa example ah malihi right aniga iga qaadanin the best example like waxaan ka wadaa aniga saan ku barta hadda waan aqaanaa codingkii I know how to build tools and software and everything laakiin waan ku adkaystay right macnaha waxaan ku sheegay aniga waxaan soo maray bese habab kala duwan la sameeyay maybe adiga ma baahnid waxaas dhan waxaas
kulaylka soo ma baahnid maybe AI ka caawinaysa wixii and then you good to go sheekada waa fududahay laakiin yeah so waxaa u baahantay grind oo ah ku adkaysi iyo inaad ku jirto wixii iyo goal oriented inaad goal haysato yool right yool inaad haysato haddaad saan u socotid ma baranayso waxba right so patience-ga dulqaadka wuxuu ku fiican yahay waxaa haysataa north star waxaa haysataa meel aad xidigta northka haysataa waqooyi si aad u fiirinayso xidigtaas waxaa leedahay meeshaasaan gaarayaa markaas waxay kaa caawinaysaa waxaa leedahay hope aad leedahay iyo micnaha inaad hamigaada wuxuu ku xiran xidigtaas inaad gaarto laakiin adiga oo sameynaya patience iyo grind iyo wixii sameynaya persistence aadan lahaynna xidig aad gaarayso then waxaa kugu dhacayso hopelessness micnaha niyadjabaa kugu dhacayo right maxaa yeelay saana u socota waxaa laga yaabaa inaad adigoo socdo aad kusoo laabata meel adniyo meeshaan hore u bartabe maxaa waxaan dib ugu soo laabta right so inaad north star leedahay arrimahaasna of course aniga sababtan u bilaabo waa mentorshipka because arday badan aan arkay oo micnaha u baahan meel ay tiigsadaan oo inay dhameeyaan ay rabaan marka taasna muhiim waay marka waan ka xumayna waqti dheer qaatay laakiin arrimo badanaa jiray oon rabay inaan la sheer gareeyo way badan yihiin waxyaalaha u baahanta inaad taqaanid laakiin waxyaalahaana melihi wax kasta inaad expert ku ahaato right waxaan waa wax iska caadi ood ku practice gareyn kartid ama maalin kasta samayn kartid saan dhahay computerska daarta inaad baratid computer oo waxaa soo raadsataa qashin ay soo raadi oo jajabay ama micnaha halaabay oona saas ahayn waxaa ku heli kartaa waxaa laga yaabaa qof in iskaga gadaayo $10 ama $20 computer oo aan shaqaynaynin asaga waxaa laga yaabaa inay u tahay computerka aaba ka dhamaatay laakiin actually maybe waxaa laga yaabaa inuu hard drive wax yar ka halaysan yahay waxaa laga yaabaa inuu failure wax ka halaysan tahay adiga waxay ku tahay marka computer dhowr xabaa soo gadan kartaa daartid ama hal xabo gurigu ku yaala waa ku ciyaaraysaa micnaha waa furfuraysaa waa xirxiraysaa waa habeynaysaa xataa video ka samayn kartaa daartid oo practice videoga adoo ka sameynaa English uga hadli kartaa so English ka practice garanaysaa dadka u faa'iideynaysaa English kaada practice garanaysaa adigana waxaa baranaysaa waxaa la rabaa waxay dhahaan kill two birds with one stone so ma dhihi jirin micnaha laba shimbirood hal dhagax ku dil sidii la rabaa marka adina samaysid so waxaa la rabaa inaad waxyaala isdul saartid oo ay faa'iido badan aad ka heshid marka subscribe the video insha Allah waxyaala kala badan oo in la share garan doonaa qeyr aan idin rajeynayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh